السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا أصحاب شرفتي قيمة قدرين مدن إن شاء الله تعالى عاوة نواهبين سنينا محل هذا سوق نوفر بدونا سيدو كلا إن شاء الله وحنسلك في دونا عن أركين في السودانيين أو وجلستيين كل عشان دونتان سي هادو رول كأريج كوجار كأ أما كونفاميشن هذا أريج كوجار كأ lacagahaasaan idinla fiirin doonaa si orada ayaan ku dul mari doonaa ayaga waxaan rajeynayaa lacag walba aan hadda inta ku dul marana iyadoo maxaa la yiraahdaa oo idea ah inaan soo dhigi doono qaybta Telegramka haddii aad mar hore ku jirtay waa okay haddii aadan ku jirinna qaybta description-ka kala bax oo maxaa la yiraahdaa nala soo wadaag wixii idea-daada iyo wixii fikirkaaga ah wixii su'aal aad qabtidna qaybta nagu soo weydii description-ka qaybta hoose ee YouTube-ka kala bax insha Allah waxaan bilaaban doonaa hadduu ilaahay yiraahdo analyse-yada iyo lacagaha aan rabo inaan idinla dul maro sidoo kale lacagtan aad aragtaan oo noo saaran maxaa la yiraahdaa watch listiga ama inoo muuqato waa CAD JPY ama lacagta Canadian ama lacagta Japanese u taqaanaan CAD JPY labadii isbuuc u dambeysay waxaad la socotaan inaan si qurux badan aan ula soconay oo lacagta ay noo sameynaysay dhaqaaqiyo ilaa iyo baygan aan la soo soconay at the moment hadda meeshii laga filayay waxaan filaynaa inay wada imaaday meeshii aan u soo soconay marka waxaan fiirin doonaa monthly perspective-ka ama bisha aragtidaya iyo qaabka ay noola muuqato sidoo kale ana shakhsiyan waxaan isticmaalaa istiraatiijiyooyin gaar ah waan idin sheegay hadda ka horna waa idin la wadaagay istiraatiijiyadaas oo ah istiraatiijiyada ninkii la dhahay transparent ama ni oo ahaa W iyo M button sidaad la socotaan lacagtan waxay soo sameysay monthly waxaad aragtaan M button ayay soo sameysay dan M button-ki markay imaaday bartaan waa ka soo qaadana waa meesha bayga aan ka soo galnay aan la soo soconay labadii week saddexdii isbuuc afartii isbuuc oo la soo dhaafayay lacagta waxay sameynaysaa qaab noocan ah ugu dambeyntina waxay imaatay neckline-kii ay soo request gareysay isku diyaarinaysaa lacagta marka inay soo aado down trade sidoo kale weekliga waxa aan ka aragno maxay tahay weekliga lacagtan fursada nooga muuqato maxay tahay weekliga waxa inooga muuqda lacagtan in xal yiraahdaa ay sameynayso another button oo ah W button bartan hadii uu kaaga muuqdo lacagta waxay sameynaysaa inay hoos u soo dhac yar ay imaado sidoo kale lacagta waxay joogtaa zone adag taas oo ah bartan waxa macquul ah lacagta muuqdo waa candle cirifkiisa maybe candle-ka xigo inay soo buuxiso ay soo fiil garayso ilaa iyo bartan hal candle oo kale ay ku darto oo buy ah then markaas ay hoos u soo dhacdo waa probability laga filayo lacagta iyo aragtiyada iiga muuqda daily-ga maxay sameynaysaa daily-ga waxay sameynaysaa lacagtan saan hadaba ka soo aragno weekly-ga waxaad u jeedaan lacagta markii ugu dambeysay waxay soo sameynaysaa dhaqaaqyo isla siman oo ah inay sameyso impulse correction almost waxaad u jeedaa inay hadda lacagtii ay ku jirto zone adag sidoo kale waxay ku soo laabatay lacagtii structure adag oo bartan ah lacagtan structure-kan haddii ay soo fatuudo ay si fiican oo qurux badan ay u soo jabsato waa fursadda la raadinayo waxaad sugtaa ilaa ay breakout ka soo sameynayso then breakout-kaas waxaad sugtaa structure-kan inta ay ugu soo laabanayso intaas inta ka sokayso lacagtan indhaha ka fiirso waxba lacagtaada ha ku khasaarin ee sug ilaa ay structure-kan ka soo baxdo markay structure-kan soo baxdo confirmation qurux badan oo sax ah ka raadso kadibna all the way down ayaad ugu qaraaban doontaa haddii bartan maxaa la yiraahdaa ay ka aadana waa macquul inay buy ka sii aado si candle-kan ay u soo confirm garayso ay soo buuxiso lacagta waa aragtida aan ka qabnay KJPY lacagta xigta waxay inoo noqon doontaa oo KJPY lacagta xigta waxaan ka dhigaynaa Euro NZD iyadana aragtida aan ka qabno maxay tahay Euro NZD waxaad joogtaa daily-ga weekly-ga haddaan ku soo tuso Euro NZD waxaad aragtaa inay lacagtan iyadana ay sameysay M button qurux badan bartan waxaa nooga muuqdo M button in lacagta haddii M button ay sameyso waxaan idhi bartan waxaa laga soo qaataa entry anagoo ku base garaynayna istiraatiijiyadeena iyo lambarada iyo policy noo waafaqi jiray in lacagtan ilaa iyo waxaan la soo socon doonaa neckline-kaas oo buy ayay inoo sheegaysaa daily-ga fiirino daily-ga waxaa aragtaa lacagta almost inay sameysay dhaqaaq impulsive qurux badan ah inay sameysay impulsive quruxda badan ay sameyso waa maxay waa impulsive buy ah ayay sameysay markii hore structure-ka lagu celinayo lacagta meeda waatana structure-kana lacagta lagu celcelinayay lacagta waxay soo sameysay dhaqaaq qurux badan ayay ku soo jabsato xoogan in lacagta waxay ku soo laabatay zone-kii I hope ardayda qaybta VIB-da waa la wadaagnay istiraatiijiyada iyo qaabka loogu base gareeyay rules-ka
hadda waxaad aragtaan babinaajiga haddaan isticmaalno anagu babinaaji baan isticmaalnaa iyo rule baan isticmaalnaa oo entry aan ku qaadanaa ayoob waxaad aragtaa golden zone ay kusoo laabatay golden zone kana laga filaayo inay buy ka aado ilaa iyo areadan in lala soo socdo lacagtan meeshaas ay ka aado baatanka kale meeshan kaaga muuqda ee lacagta noo samaynayso waa head and shoulder qofkii arkaayo si qurux badan ayuu u arkayaa lacagtan euro NZD wiji qurux badan ay inoo sheegaysaa waxaad ku ilaashataa watch listigaaga entryga iyo ruleka iyo qaabka loo qaato ayoob waxaan u sharaxnay video ahaan qaybta telegramka kasoo fiiri insha allah lacagta xigta waxay noo noqon doontaa GBBOUD iyadana waa maxay fursadda quruxda badan ee aan ka aragno maantiliga ayaan tegi doonaa si aan kaaga soo tuso aragtiya guud si aad lacagtan aadan ugu degdegin ayoob waxaan filayaa wal traderisa ama kumanaan traderisa lacagtan inay buy ka wada sugayso laakiin ma bisla xaqiiqatan markaan runta idin sheego lacagtan waxba lacagtaada ku khasaarin ilaa ay lacagtan kaa siiso I hope qof walba inuu confirmation u gaar ah uu leeyahay lacagtan haddaan kuu tuso dhowr waji waxaa aragtaa lacagtan inay almost breakout trade line ay soo samaysay dadka market structure-ka isticmaalo waa kamid ahaa SY waxaad aragtaa meeshan inay ku gashay correction maanta liga waxa la filayaa waxay tahay inay lacagtan sell soo aadi doonto waa probability-ga maanta liga ka jiro sidoo kale istaraatiijiyadeen haddaan ku base garayna oo hadda aan isticmaalnana lacagta waxay ina tusinaysaa inay meel zone ah oo qurux badan ay imaado oo W pattern bartaan qofkii arkaya ila arkaya ayaa meeshan iga samaysan dan lacagta all the way up ay aad kadibna waxay ku soo laabatay neckline-kii ee W-da ahaa waxaan sugayaa neckline-kan intay si fiican ugu soo buuxsanayso monthly-ga waa aragtida aan ka qabno sidoo kale waxaan ku base garayn doonaa weekly-ga iyo waxa ay naga tusinayso lacagtan weekly-ga maxayna tusinaysaa weekly-ga waxayna tusinaysaa same inay samaysato wax loo yaqaano double bottom inay samaysatay sidoo kale double bottom-ka waxa uu almost jabsaday uu ka dhex baxay structure-ki si qurux badan oo ugu dhex baxay waxaad filaysaa ama aad aragtaa lacagtan weli inaysan bisleen oo maxaa la yiraahdaa aan buy u qaadan karin iyo ay confirmation-ka la rabo ay kasoo buuxiso sidoo kale daily-ga maxayna tusaysaa daily-ga waxaa aragtaa double bottom aad u qurux badan inay lacag samaynayso balse weli aysan bisleen lacagtan laakiin waxay imaan doontaa hadduu eebo qadaro bartaas neckline-kaas ayay imaan doontaa waa goorme area-dana waxaan ka raadin doonaa confirmation telegramkaygan la soco anaa soo dhigi doono maxaa la trade idea-ha dan bartaas ka gaad insha allah ilaa iyo bartan confirmation aan ka heleyno waxba lacagta ma trade garaynayno oo waxaa waaye waxaa macquula probability-ga aan sugayno inay noo samayso dan haddii bartaan ay kasoo maxaa la lahaa ay kasoo dhaqaaqdo waxaan sugaa structure-kan intay kasoo jabsanayso dan anaa idinla soo wadaagi doono sida looga faa'iidaysan doono iyo fursadaha ka dambeeya insha allah lacagta xigta waxay inoo noqon doontaa hadduu ilaahay kuu roon yahay GBP USD lacagta inoo xigtana waxay inoo noqonaysaa GBP USD weekly-ga ayaan tegi doonaa GBP USD maxay inoo samaynaysaa weekly-ga maxay naga tusinaysaa weekly-ga waxay naga tusinaysaa baatan aad u qurux badan lacagtana lacag mustaqbal leh ayay u eg tahay idinku ilaashan doono maxaa la dhahaa watch listigiisa lacag fiican wuu ka samayn doonaa hadduu ilaahay qadaro oo ilaahayna uu calfo lacagtan waxay samaysay W ayay inoo samaysay ayay samaysay hadday samaysay waxay kusoo laabatay neckline-kii ayay kusoo laabatay neckline-kan ha kusoo laabato ma soo dhammaystirata no waxaad aragtaa candle kale inuu u dhiman yahay structure-kan that's why weli lacagta sell ayaa ku dhiman weekly-ga daily-ga ayayna fiirino daily-ga maxayna tusinaysaa daily-ga waxay ina tusinaysaa lacagtan almost inay structure ay breakout kusoo samaysay structure-ka ay breakout ay kusoo samayso aaway waa kana structure-kan ayay noo soo breakout garaysay waxaad aragtaa structure-kan hadday soo breakout garaysay maxaad ka filaysaa marka lacagtan inay kuu laabato ee bartan aado hadduu eebo kuu qadaro insha allah markii ay confirmation-kaas ku siiso ee bartan ku imaado si qurux badan oo maxaa la yiraahdaa waxaad ugu faa'iidaysanaysaa sell ayaad ugu faa'iidaysan doontaa sidoo kale baatan qurux badana ka muuqdo oo ah head and shoulder qofkii arkaya arko waa kaasaa madaxii garabkii kalena waa kana midka hadda filayna sidoo kale haddii ay ku khilaafto suuqa uu ku khilaafo istaraatiijiyadaada ama ruleska-ga uu khilaafo lacagtan waxay samaynaysaa buy sidii hadday aad arkaysay monthly-ga waxaan ka qabnay perspective ah ama aragti ah inay lacagta W neckline-keeda ay kusoo laabatay overweyna W neckline-keeda haddii lagu soo laabto lacagta buy ay yaadaa laakiin lacagta waxaan rajaynaynaa ilaa iyo bartan inay imaan doonto insha allah waa sida aan ka arkayno
iyadana watch listigaada ku ilaasho lacagta xigta waxay noqon doontaa haddii ilaahay kuu qadarayo OUD USD lacagta kale waxay kuu noqonaysaa OUD USD lacagtan OUD USD weekliga aan soo fiirino waxa ay sheegayso weekliga waxaan aragnaa OUD USD inay almost weekliga aan ku dhihi monthlyga aan ku geeyo si qurux badan si aad u soo aragto monthlyga waxaad aragtaa lacagtan inay soo sameynaysay dhaqaaqyo dhaqaaqaas oo ah impulse correction impulse lacagta waxay soo samaysay dhaqaaq xoogan ayay soo samaysay soo laabatay sidoo kale dhaqaaq ayay samaysay hadday dhaqaaq samaysay waxay ku qasban tahay nasasho yar inay soo gasho sidoo kale meesha monthlyga waxaa nooga muuqdo batankii head and shoulderka ahaa ayaa noo muuqdo lacagta waxaa macquul ah monthlyga inay buy sii aada bishan soo socto insha allah waxaan fiirin doonaa weekliga waxa ay na tusayso weekliga maxay na tusinaysaa weekliga waxaa nooga muuqdo batan kale oo aad u qurux badan oo inoo sheegaya baatanadii istaraatiijiyadda aan ku trade garaynayno oo ahaa W batan waxaan ka filaynaa inay neckline-kan ay soo buuxiso oo the way structure-kaas ay imaado laakiin ma qaadan doono ilaa iyo rule-keena ay ka waafaqdo sidoo kale haddii aan aragno fursad qurux badan waa idinla soo wadaagi doonaa dailyga aana fiirino dailyga maxay na tusinaysaa dailyga waxay na tusinaysaa almost iyadana inay correction ku jirto ama wax loo yaqaano widge aan filaya widge ayay ku dhex jirtaa widgekaas ilaa ay kasoo dhex baxdo waxba fursad kama raadin doono markay widgekaas kasoo dhex baxdo ayaan fursad ka raadsan doonaa waxaa lagu bisgareeyaa wax loo yaqaano TL iyo CTL oo ah counter trend line iyo trend line insha Allah iyadana waxaan rajeynayaa inay aragti guud ku tahay lacagtan waxaa fursad ka qaadan doonaa haddii ilaahay idmo markii ay break out kusoo samayso structure-ka kan kadibna aan confirmation-keena aan ka helno markay intisori kasta garayso waxaan filayaa inaad bartaan ka qaadan doono ilaa iyo zone-kan aan la soo socon doono lacagtan iyadana isha ku haya I hope lacagahan idin dul maray inay clear ay yihiin ilaa iyo 4 lacagood ilaa iyo 5 lacagood waxaan rajeynayaa inay wax badan kaa caawin doonaan si aad daily breakout-keena aad ula socoto maalin walba description-keena waxaad kala baxdaa qaybta Telegram-ka waad ku soo biiri kartaa sidoo kale already waxaan bilaabnay ardayda inaan la wadaagno istaraatiijiyadii maxaa la yiraahdaa maalmahan ba aan insha Allah qof alla qofkii danaynayo wuxuu nagala soo xiriiri karaa Telegram-keena assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan idin rajeynayaa isbuuc qurux badan inuu assalaamu calaykum waraxmatullaahi